بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. dhammaan walaalaha qaaliga akhyaarta asxaabta kulli seetihiin ma fiicantihiin. halkan waa coach Maryan. haddaad channelkan ku cusub tahayna adigana ku soo dhawaaw. waxaan ka hadalnaa badanaa ama ahdaafta channelkan waxaa ka mid ah kobcinta qoyska iyo kobcinta bulshada guud. taxanayaal badan baa hadda soo dhignay alxamdulilah. waxaa ka mid ah xiriirka wanaagsan dadka u dhaxeeya effective communication. waxaan kanoo ka hadalnay tarbiyada caruurta. haddana taxanihii ugu dambeeyay the latest waxa waaye kobcinta ruuxga iyo nafsadga, taskiyatu nafs. sidee baa xiriirka allah casa wajal la leedahay aada u wanaajin kartaa? لأنه ابن آدم بانهني إيمان كان مرنا وضعيفا مرنا وكبعا. الإيمان ينقص ويزيد. مركا وحا أباهنه مركا إسحسوسين سيدي يقين كان إلهي عز وجل أصيبته كالسوني دا إلهي عز وجل قبلنا سيد أصيبته حسن الظن بالله إنا أصي محالي هذا سيكب عنه أن سبحان الله الدنيا ذانا caqabaad badan bay leedahay, waxyaalo badan baa ka hor imaana, imtixaano badan baa maraysaa, ups and downs badan baa la kulmaysaa. marka yacni waxyaalaha kaa caawinaa inaa markastaba inaa positive ahaatid, inaa markastaba arrin kastaba kuu soo food saarta ama arrin kasta kuu imaata inaa dhinaca wanaagsan ka fiirisid, inaa xusna dhan billaah lahaatid, inaa markasta khayrka dhinaca khayrka aa badisid. waxaa kaa caawinaya markaa xiriir wanaagsan allah casa wajal aa la leedahay, markuu iimaankaada qawi yahay, markuu yaqiinkaada qawi yahay. marka hadda taxanahan hadda ugu dambeeya waxaan u bixinay silsilatul faraj. waxaan ka hadalnay midka ugu horeysa ama labada ugu horeey waxay ahaayeen fadliga saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sidee bay noloshaada u bedeli kartaa ama positive aad u noqon kartaa. tan labaadna waxaan ka hadalnay fadliga laa xawla walaa quwata ilaa billah. marka laba waxa waaye maqal oo aad iyo aad kuwa anfacaya, especially markii yacni nolosha imtixaan aa la kulantid, markaa isdhehaysid duruuf oo adagaa maraysaa. waxyaalaha kaa caawinaya inaa dhib kasta aa maraysid inuu ilaahay kaa bixiyo waxaa ka mid ah markaad dikriga ilaahay badisid, especially adkaartan ka hadalnay oo maqlayaasha hora u noqon kartaa insha allah. haddana maanta I'm so excited, waxaan ka hadli doonaa insha allah fadliga dikri kale oo run ahaantii waxaan aniga ila tahay inuu yahay the most powerful dhikr. waa sirta ugu weyn, asraarta oo faraj waxaa la dhahaa yacni ilaahay casa wajal wax kasta dhib kasta ku haysta inuu kaa fujiyo, umuurahaada oo istaagsan inuu ilaahay kuu kala socodsiiyo, wax kastaa jecesha inuu ilaahay si yacni oo dhaqso ah inuu kuu siiyo insha allah. marka dikrigan bidaat yacni especially dikrigan waxa waaye waa dikr subxaan allah oo yacni ilaahay casa wajal albaabo kheyr badan buu kuu furaya, albaabo kheyr badan oo yacni hadduu caafimaadkaada yahay, haddii risqigaada yahay, haddii quluubta ibni aadanka ilaah casa wajal uu kuu furaayo, waxyaalo badan kheyr nooc kasta oo yahay baa u baahantahay adi noloshaada hadda ama xitaa tan aakhiradana insha allah tacaala oo ilaahay kuu keedin doono. markaas yani that's why fadliga dikrigana hadda ka hadli doono waa dikr oo ambiyadoo dhan waxa ugu horeeya ee markasta ay ka waanin jireen ummadahooda ee u sheegi jireen dadkooda inay markasta xasuusiyaan waa al-istikfaar. yani istikfaarta inaan badino. istikfaar subxaan allah yani hadda fiiri adiga sunan ilxayaa ama qawaaniinta nolosha waxaa ka mid ah wax kastoo la isticmaalo inay aakhirka u baahan doonaan in la nadiifiyo because way wasakoobayaan. hadda waxaa ka soo qaadaa dharkaad gashan tahay hadda ilaa goormaa gashnaan kartaa? maalin, 2 maalmood
ugu badnaan 3 maalmood khasab waxay noqonaysaa inaa iska bedeshid. kadaalika jirkaada, ilkahaada, yani markasta subax kastaba waa soo kacnaa, ilkaha waa cadaysanaa. maxaa dhacay? because way wasakoobayaan, so we need inaa cusboonaysiino sidaa mar kale u isticmaalno. subxaan allah, yani noloshaadana ku qiyaas wax kaste. guriga ina la xaaqo u baahan yahay, jikada alaabta ina la dhaqi u baahantay sida mar kale loo isticmaalo suxuuntii, koobabkii, wax kastaba nolosha aad isticmaashid waxay u baahan yihiin inaa dhaqdid, inaa nadiifisid, sidaa mar labaad a si wanaagsan aa u isticmaashid, aa ka anfacdid oo yani manfacadiisa aad ka heshid. marka subxaan allah, qalbiga waa xubinta ugu muhiimsan ibni aadanka. yani xubnaha jirka yani waxay kamid yihiin the most critical organskay kamid tahay, yes, laakiin diiniyan ama spiritually ama yani nafsiyan iyo ruuxiyanba qalbiga waa waxyaalaha oo subxaan allah, yani ilaahay casa wajal yani laa yanduru ilaa acmaalikum, quluubteenuu fiiriyaa ilaahay casa wajal, dheerarkaada, kalarkaada, meesha ka imaatay, meesha yani saa u eg tahay, bank accountkaada ilaahay ma fiirinayo, qalbigaadu fiirinaya. shuruudda ugu horeysa jannada ku galeynana ilaa man ataa jaa biqalbin saliim. yani shuruudda aa ku gelaysid jannada, qalbigaada waa inuu saliim ahaado. muxuu saliim ka ahaanayaa? waa qalbi oo nadiif inuu ahaado, oo wasakhyada dunuubtoo dhan buu nadiif ka ahaanayaa, kibirkuu nadiif ka ahaanayaa, akhlaaqda xun buu nadiif ka ahaanayaa. wax kasta oo yani subxaan allah oo qalbigaas wasakheyn kara oo nafsi ah buu qalbigaas inuu nadiif ka ahaado waaye. so maadaama xubinta ugu muhiimsan nolosheena ama jirkeena diiniyan iyo nafsiyanba ee tahay qalbiga iyo emotionskaada iyo feelingskaada, diiniyanna yani xasanaadkaada iyo acmaashaada saalixada ah, waa muhiim inaa qalbigaada nadiifisid. sidee u nadiifinaysaa marka qalbiga? that's why ambiyadoo dhan waxay ku wada heshiiyeen waxyaalaha quluubta nadiifisa waxa ugu powerfulsan, waxa ugu yani mafcuulkiisa ama howshiisa aad u qabanaya waa dikirkan, waa istikfaar. that's why nebi nuux, nebi huud, nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam, ambiyadoo dhan calayhi salaam ee dhihi jireen istakfiruu rabbakum. suurado badan iyo aayado badan oo kala duwan iyo axaadiis badan oo ka hadlaysa fadliga istikfaarta. marka maanta aniga halkan coach Maryan waxaa rabaa inaan ka hadlo not just fadliga istikfaarta, muxaadarooyin badan iyo shuyuukh badanaa ka hadla, laakiin waxaa rabaa inaan xooga saaro sidee baa istikfaaru lxaqiiqi, istikfaarta saxda ah practically sidee u sameynaa. because markasta muxaadarada aadaysa waxaa lagu leeyahay ilaahay dembi dhaaf wareyso, ilaahay cafis wareyso, laakiin sidee oo saxda ah aa istikfaar u sameyn karnaa? sidee baa yani jalsatul istikfaar intaa meel fariisatid, sidee baa practically istikfaarta u sameyn kartaa? taasaan ka hadlaynaa, iyo qisado oo dhiirigelin ah oo kaa caawinaysa inaa yani markasta istikfaarta aa samaysid, sidaa yani markastaba yani motivated u ahaatid, ama markastaba aa u jeclaatid inaa istikfaarta xasuusatid. yani qisadahana maaweelin bay naga tahay, iyo inaa yaqiinteen xusna dhan bilaahi casa wajal aa ku qabno inaa sii badino. marka haddaan ka bilaabno insha allah waxyaalaha faa'iidooyinka kaaga imaanaya markaa istikfaarta badisid. faa'iidada koowaad, ilaahay casa wajal wuxuu ku siinayaa xasilooni iyo nabadgelyo, ammaan baa helaysaa, safety baa helaysaa. yani subxaan allah, waqti hadda waxaan ku jirnaa oo yani dhibka badan yahay, dagaalada badan tahay, yani fitan dunya aakhir zamaanka waxaa kamid ah yani dhibkaa soo badanaya, dahara alfasaadu fi lardi walbaxr. yani meel kastaba dhib baa ka jirtaa, guryihii, qoysaskii, dadkii, dowladihii, wixii oo dhan. marka adiga ase ibni aadan ahaan ama ase shakhsi ahaan, sidee
baa naftaada ugu caawini kartaa inaa assalaam annafsi inaa haysatid, ammaan inaa heshid oo peace inaa maskaxdaada, qalbigaada, emotionskaada inaa peace heshid. maxaa kaa caawinaya? waxaa kaa caawinaya al-istikfaar. ilaahay caza wajal qur-aanka wuxuu ku dhahay 2 sabab baa jirta haddaa ratid inaa ammaan heshid. labadaas yacni sabab midkood waa inuu maxaa la yidhaahdaa aa haysatid noloshaada. aayadda sheegaysa taasna waxay ahayd ama waxay tahay bismi illaahi raxmaan raxiim suuratu alanfaal wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. marka asbaabtoo kaa caawinaysa ilaahay inuu cadaabta kaa badbaadiyo, mid adduunyo ama mid aakhiro, waxaa ka mid ah يعني نبي عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إلهي عز وجل عذاب مرنا ما تصايا أما ما عذاب ما صارايو أما ما عذبينايو هدا أذيك كتشرت النبي عليه الصلاة والسلام. مركا أنا كوقت أنا هدا تشوغنو طبعا يعني عليه الصلاة والسلام إلهي كوي لكل ما بإذن الله تعالى آخر إله نقدقه وإن شاء الله حوض كيس كعب بيها بإذن الله تعالى ومركزتنا جيران كيس نقضي إلهي نقدقه النبي عليه الصلاة والسلام كل كين آمين لها. لكن وقتي أنا هدا أنا كتشوغنا الدنيا دا وقتي أنا تشوغنا 2023 نبي عليه الصلاة والسلام من لا تشوغو مركا محاوى السبب كلا ونقع عاوين كرئينا إلهي عز وجل عذابتي سكبد بدنا إلى كبد بادنو وحواي استغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحان الله يعني sometimes هذا وقت قاعد شوقنا معذبهم يعني عذاب حتى واحد يقول not just عذاب الآخرة عذاب الدنيا باكرة عذاب النفس باكرة. وقت هذا واحد كتشرنا سبحان الله the most أسباب تقدرت قولي وانا عيان sometimes هذا ونفتو ذا كتخلصان suicide ونفتو ذا الدلايان أما depression أما anxiety أما أمراض النفسية ذا بدتي تاسنا يعني مركو قفك ابن آذن كمركو حسلوني وجذيه سمركو كتشرين عذابتي كمتهاي dad badan baa kiniiniyo ku seexanaya oo walwal iyo walbahaar iyo baqdin iyo naxdin markastan lifekooda ku jirta taasna cadaabkii kamid tahay. marka as a muslim yani qof oo ilaahay caza wajal raba inuu badbaadiyo ilaahay caza wajal inuu naga badbaadiyo dhibkaas iyo cadaabtaas iyo markasta noloshana xasilooni inay ku jirto aan nabadgelyo aan dareeno xitaa anakoo dhib iyo meel ku jirna ama buuq ku jirna laakiin still يعني internal peace يعني gudahaada inaad ka dareentid طمأنينة xasilooni nabadgelyo inaad ka dareentid maxaa kaa caawinaya waa al-istikfaar. markastana aa xasuusano wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. markasta istikfaarta badisid waxyaalaha kaa caawinaya in qalbigaada xasilooni uu helo. tan labaad waa faa'iidada oo markaste oo yani caanka ah oo nebi nuux calayhi salaam oo dadkiisa markuu ku dhahayay waa aayadda oo subxaan allah oo ka hadlaysay فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا مركو النبي نوح عليه السلام وسورة النوح مركو كهدلايو يرسل السماء عليكم مدرارا يعني روب يوسد إنايا أن سبحان الله والله مرمر يعني مركا فضلك استغفارتا أم تسي يعني سنذكر ربضا مركا استغفارتا ربينا سفي عن أسي برتو dad badan waxaan ka maqlay oo waliba wadamo oo roob ka da'in jooga markii istikfaarta badiyaan subxaan allah roobka xitaa ilaahay caza wajal wuu soo sahlaa and sometimes khayraadka barakaadka risqiga waxyaalo badan buu ilaahay u furaa wayumdidkum biamwaalin wabaniin ilaahay wuxuu nasiinaya risqi xalaalo waasic ah yani waxaa xaqiiqo ah waxaa sidqi ah subxaan allah ilaahay caza wajal khazaa'inu samaawaati walard gacantiisa ku jirtaa marka arsaaqda gacantiisa ilaahay caza wajal ku jirtaa marka istikfaarta waxay ka mid tahay asbaabta ilaahay risqigaada iyo asbaabta risqiga ilaahay caza wajal uu kugu waasicin lahaa
aad ku dadaaleysid subxaan allah. yani marka adi dadaalka istikfaarta la imaatid ilaahay waa musabib ilasbaab. xitaa wallahi haddaad degan tahay tuulada ugu faqiirsan oo ugu sabolsan ama yani awdaacdaada ama wadcigaada yani subxaan allah oo yani waxaan ka hadlaya xagga oo risqiga iyo iqtisaadiga hadduu xitaa aada u liito asbaabta oo haddaa la imaatid istikfaarta waxay ka mid tahay sabab oo ilaahay casa wajal oo kugu badinayo risqigaada oo subxaan allah ama shaqo fiicanaa helaysaa ama arsaaq min xaytu laa taxtasib baa helaysaa. ilaahay casa wajal subxaanahu watacaala wuxuu ku sahlayaa asbaabta oo ilaahay risqigiisa iyo nimcadiisa ay kugu badanayso. wayumdidkum biamwaalin wabaniin, caruur buu ilaahayna siinaya. dabcan caruurta waxaa ka horeysa inuu zawaaj ku siiyo bcause caruurta true zawaajay ku imaadaan. so subxaan allah dad badan oo ka raagay guurka ka xumaaday guurka asbaabta oo ilaahay casa wajal zawj saalix ama zawjad saalixad oo ilaahay kuu siinayo waxaa ka mid ah istikfaarta markaa badisid. zawjad saalixad zawj saalix buu ku siinayaa kabacdina dee ubad wanaagsan oo ilmo saalix oo kheyr qaba oo baari ahna ilaahay wuu ku siin doonaa. yumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. wanaag badan adduunyada iyo wanaag badan aakhirada buu ilaahay ku siinaya iyo jannadihiisii iyo barakaad iyo kheyraad badan. marka taas waa wasiyadii nebi nuux calayhi salaam. waxyaalaha kale oo ay kaa caawinayso istikfaarta markaa badisid yani waa ilaahay wuxuu ku siinaya enerjigaada ku badanaya. sidee ilaahay casa wajal markuu dhahay wayaa qowmi istakfiruu yani aayadda oo suuratu huud wayaa qowmi istakfiruu rabbakum thuma tuubuu ilayhi yursil isamaaa calaykum midraara wayazidkum quwatan ilaa quwatikum wayazidkum quwatan ilaa quwatikum, xoogaada kuu badinaya. hadda yani haddaan u fiirino physiologically yani jirkaada subxaan allah enerjiga ku badanaya badanaa dadka hadda so many waxaa arkaysaa dad oo ku dhahay waa daalanahay vitamin d-ga nagu yar lugahana xanuunaya maxaa la dhahaa xubnaha iyo jointska arthritis dad badan waxay ku leeyihiin energy mahayno a wax ku sameyno. sometimesna waa nafsi yani waxyaala oo markastaba oo yani kaa keeni kara in enerjigaada very low ahaado markuu moodkaada low yahay, ama waxay noqon kartaa waxyaala oo nutritionka ku saabsan vitaminaata ka yar dhiig la-aana ku haysa ama ironka ka yar iyo waxyaalahaas. marka subxaan allah istikfaarta markaa badisid sida hadaaye marka ugu horeysa aan kasoo hadalnay waxyaalaha istikfaarta waxay kaa dhaqaysaa qalbiga subxaan allah yani jirkaadana wallahi waa dareemaysaa marka intaa fariisatid yani qalbigaada ilaahay yani connected la noqotid intaa si fiican deep breathing samaysid neef fiican ku neefsatid meel oxygenkeeda fiican yahay ama banaanka ama balakoonka ama deerkaada meeshaa joogtidba meel adi hawo oo nadiif ah oo macaan ka helaysid. markaa si fiican intaa u neefsatid sanbabahaada hawo badan oxygen badan ka buuxisid istikfaarka la imaatid subxaan allah waxaad dareemaysaa yani jirkaadoo dhan xitaa inuu gudaha ka dhaqmaayo subxaan allah. lianu jirkan yaa abuuray ilaahay casa wajal baa abuuray. ilaahay asagaa shaafi ah, asagaa caafi ah, asagaa khaaliquna ah. marka waxyaaluhuna dhahay sameyna haddaa samaysid waxyaalaha waxay ka mid tahay asbaabta oo ilaahay casa wajal oo caafimaad badan oo kugu siinayo energy badan ka helaysid. detoxka hadda dad badan yani detox ay sameynayaan ama waxyaalay shiidanayaan ama operationo ama waxyaalay sameynayaan ama treatments iyo waxyaalahaasyo sidii jirkooda ama xubnahooda ay u dhaqaan.
istikfaarta ilaahay casa wajal markaa la imaatid aabadisid waxyaalahaasoo dhan automatically ama ilaahay wuxuu kuu sahlayaa yacni asbaabta oo treatmentska ama waad jeclaanaysaa waxyaalahaas oo jirkaada caafimaadkiisa ama gudaha kaa dhaqay detox kuu sameynaya ama kuu yasiraya ilaahay. dad badan waxay dhahayaan vitamina soo gadanaa waxyaalaha soo gadanaa bas laakiin ma cunno waa ilaawna waa ka tagnaa busy noqonay. istikfaarta waxyaalaha oo qalbigaada iyo noloshaada iyo maskaxdaada kaa caawinaya inaad jirkaada usoo jeesatid caafimaadkaada inaad usoo jeesatid oo ilaahay casa wajalna energy badan oo kaa siinayo bay ka mid tahay markaa istikfaarta la imaatid. haddana qeybta labaad waxaan ka hadli doonaa insha allah dhowr qisado, 2 qisad aan soo maqlay iyo 2 qisad aan aniga la kulmay, dadkii ku dhacday aan la kulmay. maxaa dhacay qisadaha uga hadlaynaa because waxay kugu dhiirigelin doontaa inaa istikfaarta inuu habit kuu noqdo, inaa wax mar kaste si oo daily ah ama si oo maalin kasta u samaysid. waxaa maalin kasta samaynaysid sidii istikfaarta u noqoto oo yacni mar kasta u jeclaatid. qisadahaas baan ka hadli doonaa lianno يعني سيدو إلهي بقرآنك أغشاقي وكلا نقص عليك من القصص وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وحيالها أو قلبي هذا كو أتكينايا إنا مركز تبا إنا جعلاتد إنا دهدد صليق النبي لا حول ولا قوة إلا بالله استغفارتا وحكمت أمركا قصده ضد أما ظروف تاذا أما كأذك ظروف كسي أذك كجري جيرين laakiin markii adkaartaas ay badiyeen ilaahay casa wajal xiriir kale leeyihiin dabcan ma aha kaliya adkaarta yani salaada inay waqtigeeda ku tukadaan, inay xanta iska dhaafaan, inay xuquuqda ibni aadamka oo dhan inay maxaa layidhaha iska ilaaliyaan ee dulmi ay sameynin, iyo markii ilaahay casa wajal wadkurullaha kathiiran dikriga ilaahay ay badiyaan. waxyaalahaasoo dhan markii sameeyeen ilaahay faraj buu u sameeyey ama yani dhibkii haysta buu ilaahay ka badbaadiyey. marka yani qisadaha way aad bay u fiicanta because wanuthabbit bihi fu'aadak waxyaalaha qalbigaada ku xoojinaya inaa markasta ilaahay xasuusatid inaad dikriga badisid ka mid tahay. qisada ugu horeysa waa qisad cajiib ah, waana qisad oo yani subxaan allah oo hadda waayahan يعني وايي هربا لكن سبحان الله waxa u malaysaa I don't know inay nugu yaraatay markii waliba dhalinyarada to be honest waxyaalaha crisiska oo dharka dhalinyarada haysta waxaa ka mid ah markii khibradooda oo nolosha ay yar tahay caqabad kasta oo hor imaata collapse ku dhacaya, yani niyad jabkooda isla markiiba aad u niyad jabayaan oo wax yar baa ku imaanaya duruuf yar ama jaamacadii dhammaysay ama jaamacaduu dhammeeyey shaqo fiican muu helin ama shaqadiyaa laga ceeriyey ama qofii is aroosi rabaan bay kala tageen ama guurkiyaa ka xumaaday. marka isla markiiba waxay galayaan severe depression ama yani niyad jab oo xoog ah ku dhacayso oo waqti oo muddo dheer inay kasoo baxaan ay ku qaadanayso. marka qisadan ugu horeysa waxay ku saabsan tahay wiil oo muslim ah wuxuu degnaa Sacuudiya. niyad jabkaas camal baa ku dhacay, shaqo la-aan, diyuun miiran, deyn badan baa lagu lahaa, guur oo rabay inuu guursado wuu ka jajabay. marka asagoo dhan yani dhinac kastaba dhib buu la kulmay. marka wuxuu dhahay okay haddiiba saan seekadii noqotay oo adduunyadiiba saan igu soo yaryaraatay waxaan sameynaya 2 week baa xaramka aadaya, kacbada ictikaaf ka sameynaya, yani waa seexanaya masjidka oo xaramka joogaya 2 week. ilaahay baa baryaya inuu duruufteyda iyo xaalkeyga inuu bedelo lianno allah casa wajal yani fafiruu ila allah. markastaba markii arinta oo yani ani noloshaada wax kastaba haddii aa dareentid inay diiqad ama ama dhib ama wax ay kugu adkaadaan waxa fiican inaa gadaal inta u fariisatid xisaabtantid maxaa waay waxa khaladka ilaahay casa wajal ka galay, ma salaadeydii baa taqsiir ku sameeyey, ma biril waalideynkaygii baa yani aabahay hooyaday ma ku caasiyoobay. adi yani inaa gadaal u xisaabtantid baa la rabaa because dembi kasta badanaa waa waxa anaka
gacmaheena aan ku falanay. Marka wiilkan wuxuu sameeyey ama ninkan dhalinyarada wuxuu sameeyey masjidku aaday, kacbadu aaday, wuxuu u dhaxeeyey maa bayna salaatin wa istighfaarin wa qur'aan. maanta dhama marna salaadii buu tukanayaa, marna qur'aan buu akhrisanayaa, inta u dhaxeyso dhanna istighfaar buu wadaa. marka subxaanallah labadaas week siduu saas ugu jiro ilaah u baryayay inuu xaalkiisa iyo duruuftiisa inuu u hagaajiyo. 3 maalmood ugu dambeysay agtiisa waqti oo ictikaafka yani dadka badana iska sameynayeen ahayd, nin oo weyn xoogaa yar baa agtiisa oo maxaa la yiraahdaa asagana ku tacabudayay oo ilaahay caza wajal maxaa la yiraahdaa ictikaaf dartiis u sameynayay. marka subxaanallah ninkan oo weyn wuxuu aad uga helay wiilkan oo dhalinyarada ah siduu u firfircoon yahay oo energy salaadii iyo qur'aankii iyo istighfaartii oo maantoo dhan adduunyaba intuu xaggaas iska soo dhigay oo maantoo dhan yani ku mashquulay cibaadadiisa. aad buu uga helay, aad buu ugu farxay, wuuna ka helay. bas marka maalintii ugu dambeysay 3 maalmood saas u fiirsanay, maantoo dhan uu fiirsanayay. markii dambe wuxuu dhahay maalintii ugu dambeysay rabay inuu tago ninka, wiilkana xitaa tagi rabay asagaba, wuu la hadlay, wuu imaaday, wuxuu dhahay yani aad baa ugu faraxsanahay nin dhalinyaro adiga camal ah inuu arko saan uu cibaadeysanaya, marka ma kula hadli karaa. marka wuxuu dhahaa tafadal maasha allah soo dhawaaw. wuxuu dhahay ma shaqaysaa adiga? kabacdi may buu dhahay, duruuf baa igu imaatay, shaqo la-aan baa ahay, dhibkaas xaggaas iga haysta. marka wuxuu dhahay aniga waxaan leeyahay hoteelo oo u dhow xaramka. dabcan dadka xaramka iyo aaday way yaqaaneen hoteelada ugu soo dhow xaramka waa hoteelada ugu qaalisan oo millions laga hadlayo. marka wuxuu dhahay hotel oo xaramka yani halka aad ugu dhow baa leeyahay. marka hoteelkaas waxaan u baahanahay nin aan ku kalsoonaan karo inuu manager u noqdo, maareeye inuu u noqdo, qeyb yani qeybaha department ka mid ah inuu maareeye u noqda u baahana. marka adiga waxaaba ka helayba saa u cibaadeysanaysid yani waana qalbigeygana aad buu kugu furmay, marka maxay kula tahay shaqadaas inaa qabatid. wiilkii subxaanallah farxad meelu isgeeyo waaye, because yani subxaanallah hoteeladaas waa hoteelada ugu qaalisan bay ka mid tahay magaaladaas maka. marka wiilkii markuu farxay yani dabcan ahlan wasahlan buu dhahay, wuu soo dhaweeyey. subxaanallah markaas wuxuu haddana su-aal kala weydiiyey, adiga maasha allah wiil waxaa u eg tahay oo yani muxtaram ah oo wanaagsan, marka ma guursatay yani xaas ma leedahay? markaas wuxuu dhahay maya, waa jeclaan lahaa inaan lahaado, da-dii oo xaaskana waa ku jiraa, laakiin yani maadaama duruufteydii shaqo ma haysto, maskan ma haysto, meelaa dejiyo oo mas-uuliyad guri ku dhisa maadaama haysanin, marka daas waa guurkana igaa raagay oo qof oo maxaa la yiraahda ama cid yani diyaar u ahayn saacadan. marka wuxuu dhahay okay, markaa shaqaysid insha allah shaqadan ka mid noqotid, gabadhaydaan haayaa oo ayadana maasha allah sinul zawaaj gaartay, marka haddii ilaahay casa wajal calafni dhex dhigayna yani aan aragno. wiilkii subxaanallah yani ilaahay casa wajal aman yujiibu dacwata almutari idaa dac, ilaahay wuu noo dhow yahay, ilaahay waa qariib siduu ku sheegay aayado badan ilaahay casa wajal yani waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib. ilaahay wuu kuu dhow yahay, uma baahnid maxaa la yiraahdaa sheekhow ii duceey, hebelow ii duceey, ama meelo inaa markasta wacd. ilaahay wuu kuu dhowey, adiga duceyso. oo ducada ugu yani asbaabu ducaaga inuu mustajaab kuu noqdo waxaa ka mid ah marka adiga qalbigaada kasoo go-do. ani hadda haddaa idhahdid ii duceey waa kuu duceynaya, laakiin ducada adiga naftaada u duceysanaysid adiga moor qalbigaadi kasoo go-eysa oo moor energy oo yani dhab ee kaasii tahay inaad ducadaas u baahanta ilaahay inuu kuu xaqiiqiyo. therefore ducada adiga naftaada u duceysid baa ka awood badan oo ka xoog badan markuu qof kale kuu duceeyo. marka subxaanallah wiilkaas markuu duceystay ilaahay casa wajal muu khayibin. ilaahay yani subxaanallah waa kariim, ilaahay wuu naxariis badan yahay, wuuna jecel yahay qofka markaa usoo dhawaatid asagana ilaahay casa wajal wuu kuu soo dhawaanaya oo nimcadihiisa marka adiga ilaahay duco ugu dhawaatid
ilaahay asagana ijaabad iyo nimcadihiisa inuu ku siiyo buu kugu soo dhowaanayaa. marka subxaan allah taas bay ahayd. qisada labaad waxa waaye waxaa jira lamaano ayakana dhalinyaro ah, dhowr sano isqabeen, 8 sano isqabeen, laakiin ilaahay casa wajal ubad ma siinin. markii dakhaatiirtii wuxuu dhan aadeen waxaa la dhahay waxba ma qabtiin, waxba jirkiina yani waxba ma qabo, laakiin yani alamr min allah casa wajal. marka subxaan allah gabadha oo xaaska waxay samaysay 8 sano sidii u sugaysay. markii dambe waxay maqashay muxaadarad oo ka hadlaysa istikfaarka yumdidkum biamwaalin wa baniin, amwaal iyo baniinba ilaahay wuuna siinaya, caruurna wuuna siinaya, marka istikfaarta badisiin. waxay dhahday bal istikfaarta insha allah tacaala ku dadaalaya. yani subxaan allah markii 2 wiig waday, subxaan allah wadaad baa ka hadlaye, gabadhii uur bay lahaatay. subxaan allah. marka asbaabta qof kasta oo kasoo daahay ubadka iyo yani iyo ilmo saalax ilaah inuu siiyo, istikfaarta badso. qof kastoo guurka kasoo daahay, istikfaarta badso. qof kastoo guurka ka xumaaday inuu ilaahay wax kaloo saalax siiyo, istikfaarta badso. waxyaalaha oo ilaahay risqiga amwaal wa baniin kugu siinaya ka mid tahay. taas waa qisadii labaad. marka labada qisadooda aniga la kulmayna waxaa ka mid ahaa mid gabadh dhalinyaro aad jirtay. marka subxaan allah waa aqaani. marka waxay igaa sheekaysa mar waxa arkay ayadoo hurdaysan. marka subxaan allah maxaa dhacay yani waayo qof oo taayad ah oo hurdo la-aan hayso, because hurdada igu yar. hurdada maxay kugu yartahay? walwalka igu badan. walwalka muxuu kugu badan yahay? hadda leeba adduunka usoo kacday oo yani noloshu kugu cusub tahay. ma aqaan wax kasta i haysta, yani wax kasta yani kula sagiiratin wa kabiiratin waa ka walwalaa. waana waxyaalo oo dhalinyarada hadda subxaan allah ee ku badan anxiety, stresska, wax yar ku dhaca way ka walwalayaan. walwalkaasna waa walwal oo jiro ah oo u keenaya xitaa inay hurdo la-aan ku dhacdo, inay jirkooda fatiig oo tabartooda ee darnaato. marka subxaan allah gabadhaas waxaan ku waaniyey inay istikfaarta badsato. subxaan allah wiig ka bacdi mase 2 wiig ka bacdi mar aad sheekaysanayna mar kale waxay dhahday you cannot imagine coach Marian, hurdadeydii hadda sida u fiicnaatay. hurdadeyda fiicnaatay, enerjigeyga fiicnaaday, waxyaalihii xitaa nolosha igu weynaan jiray markii wax yar igu dhacaan wax weyn bay la noqon jirtay. laakiin hadda marka istikfaarta badsado ilaahay casa wajal wuxuu itusaa xal. arin kastana yani sida awal igu weynaan jirta uga nixi jiray oo wax weyn ila noqon jirtana ilama weynaato. this is just a small issue, I can deal with it. waa la maxaa la yirahdaa waa la tacaaleyn karaa, waana dhaafi karaa insha allah tacaala, ama yani waa ka gudbi karaa. marka subxaan allah gabadhaas dhalinyarada ah markii istikfaarta badsatay ilaahay casa wajal hurdadeedu u wanaajiyey, walwalkii badnaana ilaahay casa wajal uu ka yareeyey. waxaa jirta maamo kale ayadana waxay igaa sheekaysay yani istikfaarta waxay ahayd sabab oo ilaahay casa wajal jiro oo kusoo booday oo stroke ahaa oo ilaahay uga badbaadiyey. dakhaatiirtii oo dhan way yaabeen, waxay dhaheen stroke badanaa limitkan ama digrigan kugu dhacay waxay ahayd inay waxyaalo badan ama qalal ama memorigaada ama xasuustaada waxyaalo badan ama yani waxyaalo badan oo ku saabsan hadalkaada, carabkaada, xubnahaada inay u damage gaarsiiyo. laakiin subxaan allah yani kaanaha inuuba ku dhicinba stroke dhan. waxaasna waxay dhahday waxaa u sabab ah ilaahay fadligiisa casa wajal istikfaarta yani ilaahay casa wajal fadligiisa thuma inay istikfaarta badsatay. marka istakfirullaha waxyaalaha kaa ilaahay kaa badbaadinaya waa ammaanka ka hadlaynay, nabadgelyada ka hadlaynay ka mid ahayd. dhib kastoo kugu imaada, jiro kastoo kugu imaata ilaahay wuu kuu fududeynayaa oo dhib badan ma ku tusaayo. marka hadda insha allah qeybta 3aada u gudbeyna oo ku saabsan sidee baa istikfaarta saxda ah loo sameeyaa. first of all jalsatul istikfaar u bixinayna. jalsatul istikfaar yani mar waqti intaa u samaysid lama rabo yani adoo socsoconaysid howlahaada qabsanaysa markasta waa dhihi kartaa, laakiin sidii
aad u dareentid effect oo fiican yani natiijo fiican oo sariic ah sa u heshid waa inaad waqti u khasistid wax kastoo wanaagsan ama wax kastoo muhiim ah noloshaada waqti baa u samaysaa marka istikfaarta inaad u samaysid waqti ah ama 20 daqiiqo 15 daqiiqo nus saac saacad inta adiga waqti haysid laakiin waxaa la rabaa waqti mucayan intaa meel iska fariisatid aad dhahdid okay ama salaadaha ka bacdi ku fiicanta markaa salaada dhamaysid inaad dhahdid waxaan u fariisanayaa ilaahay caza wajal inuu ii dambi dhaafo jalsatul istikfaar gaalada badanaa waxay sameeyaan wax la dhaho meditationka muxuu yahay yani waa inay intii fariistaan oo meel oo quiet intii fariistaan markaas maxaa la yidhaahdaa waxyaalo oo jirkooda iyo maskaxdooda iyo qalbigooda caawinaya inay sameeyaan anaka maadaama muslim nahnay ilaahay caza wajal maxaa waaye waxyaalo oo qalbigeena iyo jirkeennaba ku caawini karo waa salaada iyo adkaarta marka istikfaarta waxaan ka dhigaynaa jalsad yani meel intaa fariisatid aa waqti u cayintid aad fariisatid aa la rabaa taas waa mid number 1 inaad waqti u samaysatid oo mucayin ah ama hameenkii markay caruurta kaa kala seexdaan maamooyinka ama adoo shaqadaada meelaa fadhidid inaad waqti u qaysastid oo taleefonka gees iska dhigaysid lama rabo istikfaar oo laakiin mobilekii iyo facebookii iyo whatsappkii aad daawanaysid taleefonka inaad halkaas fog iska saartid oo dhahdid waqtigan I will just focus yani waxaa xoogayga maskaxdeeda dhan saarayaa inaa qalbigayga inaa yani xuduur inaa lahaado inaa dareensanaado waxaa la rabaa oo maskaxdaada qalbigaadaba inay soo jeedaan dareemayaan waxaa samaynaysid marka taas waa kow number 2 ama khutwada ama talaabada labaad waxa weeye inama alacmaalu binniyaat niyad saalixad inaa la imaatid niyad oo ah inaa ilaahay caza wajal yani istikfaarta tilaabada labaad waa inaa la imaatid niya saalixa yani inaad dhihin istikfaarta ani hadda waxaan u sameynaa siduu ilaahay lacagta igu badiyo ama caruur igu siiyo ama dhibka i haysta inuu ilaahay iga saaro saas darteed keliya ma aha yani waa rabtaa natiijooyinkii ka mid tahay outcomeskay ka mid tahay laakiin istikfaarta sababta adi istikfaarta u sameynaysid waa dhawaasho a ilaahay rabtid ina u dhawaatid waa yani waxaad rabtaa ilaahay inuu qalbigaada kuu nadiifiyo oo dunuubta aa sameynaysa inuu ilaahay kaa tirtiro sometimes dad qaarkood waxay ku dhahayaan ama xitaa u maleeyaan ma dhahaya laakiin waxay u maleeyaan ka dhaadhacsan maadaama dembiyaal waaweyn oo yani kabaa'irta hadaad sameynaynin ya oo yani riba iyo zina iyo qatli nafs iyo marka wax weyn aa ka istikfaarsatid maba haysatid markaa salaada dhamaysid 3 jeer astaghfirullah alcadiim aad dhahdid keliya kugu filan maya waxyaalo badan khaladaad badan oo ibni aadan ah naga dhaca jirta waxaa dhici karta qofka ugu horeeya jamaacada inaad ku tukanaysid laynka ugu horeeya inaad ku tukanaysid laakiin dunuubtaadana kan ugu badan inaad tahay لأنه يعني وحياله بدن غض البصر ميل خلداسي u fiirinaysid niyadaada khalad ku hadlaysid acmaal yani ka ahayn laakiin riya kugu dhacaya oo maybe ina markaa sameynaysid kaama ahayn laakiin markaa hadhow marka dambe samaysid sadaqa bixinaysa laakiin still qalbigaadana dadka ha fiiriyana ku jirtay ama hal ogaado hebel ama heblaayo intii bixinayso marka waxyaalo khaladaad waxaa jirta aa sameyno badanaa aan ogeyn dunuubtana subxaanallah waxa ugu yar dunuubta waxa ugu daran culimada dhahaan kuwa yaryar because kuwa yaryar saa u yaraysanaysid wax weyn ay kula ahayn si u badanayn hadhow wax badanay noqonayaan buurtaba hadda maxay ka koobantaa buurta waa dhagaxyaal yaryar isku aruuro hadhow buur bay noqdeen marka dunuubta yaryar markii badatana waaba waxay la mid tahay xukumkeeda xukumul kabaa'irkay la mid tahay kabiirad bay la mid noqonaysaa markii kuwa yaryar waliba kas iyo ogaan u sameynaysid markasta xitaa ka toobad keenaynin kabaa'irkii la mid noqonaysaa markii batana markasta samaysid marka waxaa la rabaa step number 2 inaad la imaatid niya saalix inaa ilaahay caza wajal u dhawaanaysid oo dunuubta aad samaysay oo dhan intaa waxaa la rabaa intaa mid inta uga fikirtid because ibni aadan baa tahay khaladaad badan baa maalintaasoo dhan yani kaa dhacaya kuma dhahay kuwii waagii hore fiiri
at least يعني kuwa wiigan bal fiir wiigan maxaa khalday maxaan sameeyey qoyskayga ilmahayga lamaanahayga ama hooyaday aabahay walaashay walaalkay qaraabadayda maxaa khalad ka galay maxaa xumeeyey maxaa gaf iga dhacay maxaa salaadaha waqti on time ma tukad salaatul fajr dhibaatooyin badan baa dadka ka haysta salaatul fajr in loo kaco salaadii on time ma tukaday salaada xitaa markaa tukanaa niyadeyda ma soo jeeday mase waxyaalo kale ka fakarayay marka waxaa la rabaa ina aday intaa gadaal u fariisatid aa la imaatid niya saadiqa oo ah inii ilaahay casa wajal istikfaartan waxa u sameynaya ilaahay dembiyaashaas aan gafay aan sameeyey midaa ogahay iyo midaa ogaanba inuu ilaahay ii dambi dhaafo aan rabaa marka subxaan allah yani inaa la imaatid dhawaasho yani dikrigan waxa u sameynaysa inaa ilaahay casa wajal ugu dhawaatid ma akili yani because of interest waxa dhibaato haysta harda rabaa inuu ilaahay iga bixiyo markuu dhibaatadaas iga bixiyana dee waa hoosheedii baa ku noqon doonaa yacbuduuna allah calaa xarf yani lama rabo inaa markastaba markii dhib kugu dhaca keliya inaa ilaahay u noqotid markasta inaa ilaahay u noqotid waaye marka subxaan allah istikfaarta inaa ka fakarno oo niyad saalixad la sameyno that's number 2 number 3 waxaa la rabaa ama waaba dhahayba already yani inaad dembiyaashii o dhan inaa naftaada la xisaabtantid aad dhahdid okay ilaahay casa wajal wuu i asturay dembigan baa sameeyey waa ka toobad keenayaa oo niyadaadana ee ku qufulnaato inaad ka toobad keenaysid ya toobadda inaa la imaatid aan mar dambe aad sameyneynin inaa ilaahay ka ballan qaadid laakiin hadduu duruuf intay imaato aa khaladkii mar labaad ku dhacdid yani in allah ghafuuru raxiim laakiin adiga hadda niyaddii inaa dembigan aa mar dambe aad samayn doonin mar dambe aa sidaa dadka ula hadashid aa ula hadli doonin mar dambe websitekan oo khaladaadka iyo fusuqa ka dhex jira inaad u noqonin oo indhahaada qadul basar inaad sameynaysid mar dambe inaad salaadaada aad taraagaraynaysid alaarmyo badan armaajada korkeeda saar ama banaanka geey yani alaamka ama teleefonka hadaa dadka badanaa dad waxaa jirta oo teleefonka agtood markay dhigaan damiyaan salaada subax marka loo kacayo adi yani inaad dadaal la imaatid inaad yani dembigaas ama khaladkaas inaad intii awoodaada ibni aadan baa tahay perfect matid laakiin intii awoodaada inaad ku dadaali doontid inaad dembigan iska yaraysid marka intaa tilaabada 4aad uguna dambeysa waa yaqiin inaa ilaahay ku kalsoonaatid ilaahay inaa ku kalsoonaatid inuu kun fayakun ee ku tahay wax kasta dhibkaadoo dhan markaa isku soo duuduubtid يعني إلهي عز وجل جناح بعوضة حتى لما مد أها بال محالي هذا بال كمحي هاد تلعبدا أفراد وقومهم سنة يقين تاد إنه إلهي عز وجل إنا يقين قوي إلى إلهي كلاتد حسن الظن إنا إلهي يعني إنا إلهي كل سناتد إنه kun fayakun ee ku tahay arintaada inuu kuu kala dhammayn doono ilaahay inuu ku siin doono waxaad ka baryeysay ilaahay dhibkaad ilaahay ka magangelaysay inuu ilaahay kaa badbaadin doono wixii kaa caliqnaa ilaahay inuu kuu kala furfuri doono wax kasta ilaahay ka rabtay inuu ku siin doono inaa yaqiin oo kaamil ah oo taam ah aa la imaatid inuu ilaahay casa wajal oo ku maqlaayo samiic yahay basiir yahay raxiim yahay kuu naxariisanayo waxaad jeceshahan ilaahay inuu ku siin doono inaa 100% inaa aaminsanaatid inuu ilaahay ducadaada ajiibi doono oo kaa aqbali doono oo ku siin doono yacni arrimahaadoo dhan markaa isku soo duuduubtid oo yani subxaan allah adduunyadan oo dhan baa ilaahay waxay la mid tahay kaneeco baalkeed janaax bacuuda marka arintaada oo yani waxbaba ahaynba baa yani ilaahay wuu ku siinaya aaminsanaaw wax kastaba ilaahay inuu ku siinayo adiga maybe maanta problemka ku haysta wax weyn bay kula tahay dhibka ku haysta dhib oo laga bixi karo inay ahayn kula tahay ama wax impossible mustaxiil ah laakiin ilaahay waxba kuma aha kun fayakun bi ku tahay ilaahay musabbib al asbaab asaga ah
marka duceyso istikfaartana badi qalbigaadana yaqiin ku hay inuu ilaahay ku siin doono waxaad jeceshahay iyo ka badan wax ka badan buu ilaahay ku siinaya farxadda hadda rabtid farxad kasii weyn buu ku siin karaa ilaahay casa wajal wuuna ku siinayaa laakiin ina adiga qalbigaada ku adkaysid ilaahay casa wajal inuu ku siinayo istikfaartana badisid it's about time and plan ilaahay casa wajal plankiisa oo wuxuu ilaahay kuu maagay iyo waqtigu kuu maagay buu ku siinayaa wuuna kuu soo dedejin karaa ilaahay waqtiga asagaa abuuray ilaahay waqtiga asagaa abuuray ilaahay aqdaarta iyo qadarta iyo sababtaba asagaa abuuray kun fayakun wuu kuu soo dedejin karaa waxaad jeceshahay marka afartaas khudwadood tan ugu horeysa waxaan dhahnay inaa meel fiican oo focus aa samaysid meel oo yacni buuqa iyo qeelada aa ka dhex bixaysid sidaa ilaahay casa wajal good connection ula samaysid oo yacni wax kale oo distraction ku u helin oo meel oo buuq yar ama haade ahoo yacni oo maxaa la dhahaa buuqii waxba ku dhex jirin inaad fariisatid aad jalsatul istikfaar u bixisid talabaad inaad niyadda la imaatid inaad dembigaada ilaahay casa wajal rabtid inuu kaa tirtiro oo maxaa la yidhahda aa xasuusatid gadaal u fariisatid self reflection wax la dhahaa samaysid tan saddexaad inaad toobad ilaahay inaad ka ballan qaadid inaad dembigan u noqon doonin inaad taraagaraynaysid iyo best haddii salaada subaxa tahay waxyaalaha oo asbaabta oo iga caawinaya inaa salaada subaxa inaa on time tukado aan sameynayaa haddii maxaa layihahdaa afkaada ama yacni hadalladaada dad badan dhaawac u geynayso waxaan taragaraynayaa inaa iswanaajiyo si wanaagsan inaad dadka ula hadlo haddaa xanaaqana si xun aad dadka ula hadlin yacni adiga waxaa ilaahay ka ballan qaadaysaa inaa khaladaadkay dembiyaasha geli jirtay inaad galin tan afaraad ugu dambeysa inaa ilaahay casa wajal ku kalsoonaatid because yacni ilaahay baa la hadlaysa waa melikulmuluuk ya melikulmuluuk waa boqorka boqoradoo dhan wax kasta aa ragtidna يعني waxba ilaahay waxba kuma ah inuu ku keeno oo ku siiyo oo waliba yani yudhishuka fi ataahi wa wax kasi weenaba heli doonta kasi qurxoon waxaad rabtidba marka insha Allah intaas ku soo koobeena oo ilaahay azza wajal markastana waxaan ka baryeena inuu dambiga waalidkeen inuu dhaafo ilaahay azza wajal waxaan ka baryeena qof kasta dib kasta haysta ilaahay inuu dibka ka fujiyo qof kasta oo jecel wax ilaahay inuu siiyo wanaagsan khayr inuu uga dhigo oo khayrkaasna u badiyo oo siiyo intii dhimata ilaa uu naxariisto intii jiran ilaaha caafiyo dhalinyaradeen ilaaha noo haday qulubtooda siraatul mustaqiim ilaahay insha Allah markastaba ku hadeeyo إن شاء الله دمتم على خير وإن شاء الله ونو مقل كلا بإذن الله تعالى أن كهد الدونو فضلك سورة البقرة يسدي نولل dad badan u bedeshay sidii yani subxaan allah dad badan uga caawintay inay farxad iyo guul iyo successba inay noloshooda ilaahay inuu soo geliyay yani oo asbaabteedana ka ahayd barakada suuratul baqara ka hadli doonaa maqalka soo soco marka dumtum calaa khayr biidni illaahi tacaala